sidaan la soconno khilaafka dhex taagan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waxaa moodaa inuu cirka isku sii shareeray taasoo keentay markii maamul goboleed ay soo saareen warmurtiyeed ay ku dhaliileen dowladda iyo kuna eedeeyeen ballanka baxyo badan oo waxqabadkii laba dhinac ka dhexeeyey taasoo keentay in ay hakiyaan wada shaqaynta ay la lahaayeen dowladda federaalka ah saa la socoto maamul goboleedyadu waa stakeholders waa dadka talada dalkooda ay kamid yihiin dowladda federaalka ahna waa dowladdii xilkii iyo mas-uuliyadda hadda muddadan 4 sano ah oo 2 sano ku dhawaad ay tagtay loo igmaday howlaha isaga xiranna waa howlo muhiim ah oo qasab ay tahay inay ka wada shaqeeyaan waxaa ka mid ah howlaha nabadgelyada iyo la dagaalanka al-shabaab iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhamaystiridda dib-u-eegista dastuurka meelmarinta sharciga xisbiyada iyo doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahay doorasho qof iyo cod ah marka arrimahaas iyo arrimo kale oo muhiim ah isaga xiran dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada intaba aynan qasabtahay inay ka wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada waxay ku eedayaan dowladda ay leeyihiin intaasoo jeeraan kulanay 3 kulan oo hore iyo kulan ayaga iyo dowladda federaalka lagu qabtay Brussels lagu qabtay oo intaasoo dhan lagu soo galay ballamo ayna ka bilaabatay kii London lagu qabtay labada dhinacba marka dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin dowladdii ballamadii way ka baxday howlihiina ma qabanayso taas madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shirkii uu dhici waayay la socoto shalay ahayd inuu shirkii dhaco ma uusan dhicin taas waxay kusinaysaa de weli arrintii inay ay taagan tahay xukuumadda way dhaliishay maamul goboleedyada waxay ku eedeysay inay doonayaan ajnabi inuu dhexdhexaadiyo ayaga iyo dowladda taasna ay dhaliil uga dhigtay jawaabtaas ay bixisay xukuumadda anigu runtii ilama muuqato inay tahay jawaab saxa mana filayo inay keenayso xiriir caafimaad ah laba dhinac inay keenayso ma u malaynayo maantadan waxaan arkayay warmurtiyad ay soo wada saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay uga hadlayaan arrinta galmudug ay ku eedeynayaan dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha in uu arrintaas asaga ku lug leeyahay si dadban ay ugu eedeeyeen xaaladaas cakiran runtii mid dan ugu jirto Soomaalida ma aha mid dan ugu jirto dowladda kumeel federaalkana ma aha iyo maamul goboleed intaba waxaa loo baahan yahay in laga baxo annaga marka waxaan ku baaqnaa hadaan xisbiyada iyo mucaaradka intaba in arrintaas miiska hadalka la isaga yimaado taasoo xal u ah in arrintaas ayada ah lagu daaweeyo laakiin waxaa moodaa in dowladda federaalka ah aysan ka muuqanin waxa laali iyo wixii dabacsanaan ahaa oo arrintaas lagu xalin lahaa waxa laali iyo wixii xil mas'uuliyad isxilqaan ahaa oo arrintaas ay ku xalin lahaayeen waxay ii sheegeen qaar aan la hadlay madaxda maamul goboleedyada in martiqaadka xataa madaxweynaha shirka ay ku maqleen uun keliya baraha bulshada ay ka arkeen oo wax wada hadal oo dhex maray iyadoo san jirin la iska mudeeyay shirkii markii ay ka jawaabeen mudeyntiisiina xukuumaddii ay dhaliil iyo cambaareen uga timid marka waxaa moodaa in aan dowladdu hadda aysan diyaar u ahayn dhinaceeda in ay wada hadal dhab ah la gasho maamul goboleedyada